kamid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada deegaanka Xariirad gobolkaasi Salal ayaa waxa ay si bajiro uga soo horjeesteen xilka qaadisyo iyo xilal cusub oo loo magacaabay mas'uul iyagoo si gaar ah farta ugu fiiqayn xogayihii dawladda hoose fulinta ee degmada Xariirad ka qaadistiisu ayna ahayn sharciga mid loo maray oo si gaar ah loogu beegay taasi bedelkeegana ayna wax il wareejin dhacayn inta arrinkaasi xukuumadda Soomaaliland ay soo faragelinayso go'aankan isbedelka xoogana ee lagu sameeyay مسؤولينta degmada Xariirad ayaa waxgaradkani waxay si weyn ugu eedeeyeen madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ugu baaqay inay dawladda Soomaaliland si degdeg ah u soo farageliso arrinta ka taagan deegaanka Xariirad iyagoo sheegayna inay mas'uuliyiinta siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland shacabka cawska iyo ceelkaba wadaaga ee degmada Xariirad wada degan ee walaalaha inay qori dab ay iskugu dhiibayaan waa siday hadalka u dhigeen kii la dhashay ee joogay Xariirad ee xog haya ka ahay carruurtii ka hadda qaaleeyaan lahayn saylici inanku adeerka waaba ku soo qoray madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaan ku wargelinayaa talaabada uu qaaday madaxweyne ku-xigeen hadduu sida ugu dhaqso badan wax uga qaban waayo dhibaatada dhacaysa maanta dhibaatada ka dhacda Xariirad mana ogolaan doono xog haye la xil loo tiriyo mana ogolaan doono ogolaana mayno dibna kama ogolaan doono anagu ma ogolin diyaarna uma nihin xog hayntan halkan jooga ee ku qoran ee ninka Reedil Cusmaan ee ku qoran yahay ka shaqeeyo inaan kala in lagu soo qoro oo waliba aw saylic ku soo in adeerka u soo diray anagu raali kama yihin madaxweyne ku mana yeelayno mana wixii halka ka dhaxana adag madaxweyne ku xigeen ka mas'uula waxaan u aragnaa inaad adahayn madaxweyne ku xigeen noo dhex madaxweyne ku xigeen noo xaq sooraya ninka meesha laga qaaday iyo ninka ku dhashay ku dhintay tukar maalinta dhiito waa walaalo halkii laga oran la Sameeay iimaan waxa la yiri xilka laga qaaday anagu taa dagaal baan u aragnaa anoo ku hadlaya afka dhalinyarada waxaana naga go'an wax xil wareejin la yiraahdo ma jirto ka dhacday Horjeestay TV caalamiga Hong Kong magaalada Boorama